qodobada barnaamijkan idinku hayna waxaa ka mid a muuqaalka hortiina ka muuqda oo la sheegay inuu yahay xabaalaha ciidamada Ukraine ee dagaalka dhegta dhiigga loogu daray. muuqaalkan markaad daawatid ayaad waxaad arkaysaa inta ishaadu qabato ilaa iyo fatabaciid wixii ka shisheeya inay xabaaluhu isdaba taxan yihiin. madaxweynaha Ukraine muxuu ka yiri? khubarada waaweyn ee ka faaloota arrimaha ammaankusa maxay ka yiraahdeen? waa inoo xubinta dambe haddii alla yidhaahdo. qodobada kalena waxaa ka mid a daawadayaal wadaxaajoodkii u dhexeeyey ururka Xamaas iyo Israa'iil oo weji cusub caawa galay. muxuu kaga duwan yahay wejiyadii cusub ayaa la isweydiin karaa. qaybta dhexe ayaa noogu tegi doonaa iyadana. Dr. Sebastian Ben Daniel ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayaa gudaha Israa'iil waxa uu ka dhaliyey qalalaaso siyaasadeed iyo buuq fara badan kadib markuu weerar afka ku qaaday ciidamada Israa'iil ee Gaza ka dagaalamaya. ninkan oo asaga laftigiisu Yuhuudi ah maxay waxa uu soo bandhigay ee buuqa iyo qalalaasaha dhaliyey. waa 28 xubinta koowaad aynu ku durdurinaya Dr. Sebastian Ben Daniel oo ah barasara oo jaamacadda Bangorian University baraka ah ayaa waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray qoraal aad iyo aad buuq iyo hadalhayn u dhaliyey. qoraalkiisu waa dheeryahay nuxurka ayaa doonaya in siiya bartiisa Twitterka ayuu waxa uu ku dhaliilay ciidamada Israa'iiliinta waxa uuna ku tilmaamay kuwa markaa ubadka yaryarka ee Falastiiniyiinta gumaadaya. waxa uu yiri gumaadkoodu ma ahan amar militariga xubnihiisa kala duwan ee ciidamada wata ee hogaaminaya amar ay siiyeen ma ahna ayuu yiri, balse waa wax la soo baray ayuu yiri ayaga. hadalkaanu culays iyo miisaan ayuu leeyahay. marka hore waxa uu yiri waxa ay gumaadayaan si bareer ay u gumaadayaan ubadka yaryarka ee Falastiiniyiinta. laba waxa uu yiri ma ahan amar militariga ka sarreeya ciidamadan frontline-ka ama jiida hore ka dagaalamaya ma ahan ayuu yiri amar ciidamada ka sarreysa ka imaanayeen, waa wax lagu soo abaabiyey ayuu yiri. arrintan oo kale ayaa la sheegay inaysan horey u dhicinin. professor markaas xilli dagaal lagu jiro wax dhigaya oo sidaan oo kale u hadlay waxaa la leeyahay taariikhda dhow arrin la haya ma ah. si kastaba ha ahaatee mar hadalkiisu intaasoo keliya kuma eka. waxaa dhacday markiiba in markaas uu hadalkiisii uu kusii daray markaas dhaliilo waaweyn oo Israa'iil ciidamadeeda u soo jeedinayo oo uu leeyahay markaas waxa ay ceebeeyeen ayuu leeyahay sumcaddii iyo sharaftii ay anagu aanu lahayn ayay caalamka horteena ku ceebeeyeen. oo waxa uu ka daqranayaa isagoo Yuhuudi ah waxa markaas Falastiiniyiinta lagu samaynayo. waxaana loo arkaa inuu cod u noqday shacabka reer Falastiin gaar ahaan kuwa Gaza ku nool oo markaa codkiisa uu ku biiriyey. intaasoo keliya maahane Dr. Sebastian waxyaalaha kale uu sameeyey waxaa ka mid ah in uu markaas baafiyey uu baahinta ka qayb qaatay maqaal markaas sidoo kale ay qortay jariiradda Herald article dheer oo qortay oo markaa lagu dhaliilaya ciidamada Israa'iiliyiintu duqeymaha iyo weerarada ay ka geystaan ay u geystaan Falastiiniyiinta oo ay ka mid ahayd article-kaas oo markaas la sheegay in haweeney Falastiiniyada oo 8 bilood oo uur leh ciidamada Israa'iiliyiintu markaa daantal galbeed ee la haysto ay markaa ku toogteen. kaasna waxa uu ka qayb qaatay faafitaankiisii maadaama dad fara badan ay ku xiran yihiin ayuu ka qayb qaatay. haddaba intaasu markay dhacday ayaa kooxaha xagjirka ah ee midigta fog ee dhinaca xukuumadda u janjeera ayaa durba dacwo ka qoray oo ku kacay. waxaana dhacday markaas shaqadiisii saacadaha yar uu shaqaynayay toddobaadkiiba in markaa hakad la geliyey. arrin uusan marka filaynin ayaa soo baxday markii shaqadii hakad laga geliyey. in ka badan 100 ka mid ah jaamacadda barayaasha sare ee wax ka dhiga iyo shaqaalaha kala duwan ayaa garab istaagay oo jaamacaddii inay ka noqoto go'aankeedii oo shaqadiisii dib loogugu soo celiye ka shaqeeyey oo yiri xor ayuu u yahay xorriyatul qowlkiisa. waxa uu sheegayna dhaliil asaga uu arkayo weeye, xaq buuna u leeyahay shaqadiisa ha lagu soo celiyo. shaqadii ayaa dib loogugu soo celiyey. haatan shaqadii ayuu wataa. waxa uuna ku tilmaamay kooxaha xagjirka ah ee dhinaca midigta u janjeera inay doonayaan inay khaarijiyaan naftiisuna oo ay halis u ku jirto maadaama ciidamada Israa'iiliinta uu dhaliilay shacabka reer Falastiin oo u hadlay xilli markaa ciddii Israa'iil hadashaba dibnaha la goosanayo oo markaas xaaladoodu ay halis galayso. waxaynu la soconaa inay barofesaro kala jiraan
oo hadla laakiin xilligan oo kale sida iyo waqtiga ninkan uu hadlay iyo siduu u hadlay waxaa la leeyahay aad iyo aad ayay ugaga duwan tahay haddaba shaqadiisa ayuu dib ugu soo noqday laakiin halis ayuu ku jiraa sidoo isaguba uu sheegay kooxaha markaa israa'iiliyiinta ah inay bar tilmaameedsanayaan ayuuna sheegay ee bidixda fog ah dhaliilka ninkan uu soo jeedshay madaxda carbeed iyo kuwa muslimiinta wax u dhow sooma aysan jeedinin ayaa laleeyahay marka laga reebay Erdogan oo madaxweynaha dalka Turkiga ah oo dhowr jeer Israa'iil ku tilmaamay inay yihiin argagixiso balse madaxda carbeed wax intaan u dhow marnaba ma aysan oran ayaa la leeyahay haddaanu haddaba xubintaas daawadayaal intaas ugaga baxno iyo doctorkaas hadalkada kala duwan ee uu soo jeedshay iyo taageerada shacabka reer Falastiin oo u muujiyey wadaxaajoodkii u dhexeeyey ururka Xamaas iyo Israa'iil ayaa caawa weji cusub galay kadib markii ururka Xamaas ay ka aqbaleen in markaas dowladda Mareykanku ay dib u yagleesho wadaxaajoodkii arrintaanu inay dib isku xasuusino ayay mudan tahay Netanyahu waatuu dagaalka soo rogaal celiyey wejiga labaadna uu diiday markaa in la hirgeliyo wixii lagu heshiiyeyna uu qaadacay xilli uu markaa ka walwalsanaa xukuumaddiisu inay fashilanto oo markaas loo ansixin waayo miisaaniyadda sanadlaha ah haddaba haatan miisaaniyaddii ayaa la ansixiyey waxaana muuqata in markaa Mareykanku uu soo rogaal celiyey isagoo markii hore ogaa sida wararka kala duwan ay sheegayaan Netanyahu inuu weerarka soo celiyo uu taageero ugaga helaya kooxaha xagjirka waxaa xusid mudan 850 qof oo Falastiiniyiin Gaza lagu dilay toddobaad gudaheed tan iyo intii Israa'iil dagaalka ay soo rogaal celisay 3 wiigna waxa macaawinaa gudaha Israa'iil gudaha marinka Gaza aysan gelinin waayahay haddaba ururka Xamaas ayaa ka aqbalay Israa'iil inay soo rogaal celiso isla mar ahaantaasna waxay dowladda Mareykanku ay doonaysaa in Alexandra ninka la yiraahdo oo markaas Israa'iil dhalasho Mareykan haysta in markaa gacanta loo soo geliyo dowladda Mareykanka waana arrintii uu ka shaqeynayay Adam oo ahaa markaas ninkii ururka Xamaas la fariistay oo waraysyadii uu bixiyey ku difaacay wadaxaajoodka isaga iyo u dhexeeyey ururka Xamaas oo yiri indhihii ayaa ii dilaacay garaadkii ayaa ii kobcay raggu waa rag wanaagsan ayuu yiri oo annakoo kala ah madaxana kuma lahan markaas geeso lo-aad kuma lahan oo markaas wadada la xaajoon karo arrintaas ayuu aad u difaacay arrintaas ayay daba taagantahay ayaa layidhi calaa kulli xaal ninkaas ayaa la doonayaa in la soo daayo ururka Xamaas dowladda dalka Qatar ayaa ururka Xamaas gaarsiisay qodobada cusub ee markaa dowladda Masar ay soo bandhigtay oo markaas labaad walba 5 qof lagu soo deynayo oo ah markaas kuwa nool ee Israa'iil laga hayo si kastaba ha ahaatee ururka Xamaas ayaa arrintan ku bedelanaya ayaa la yiri sida warbixin lagu sheegay markaas inay doonayaan in Donald Trump uu si bareera oo cad ugu dhawaaqo in markaas wejigii labaad la hirgelinayo isla mar ahaantaasna dagaalka Gaza la joojinayo haddaba jariirada caanka ee The Times of Israel maqaalkan qortay warbixintan ay qortay ayaa waxay ku sheegtay in ay markaas waraysteen diblomaasi sare oo carab ah oo markaas xogogaal u ah wadaxaajoodkan isla mar ahaantaasna hadalkiisu uu waafaqsan yahay warbixin Channel 12 uu diyaariyey oo ku saabsan in markaas Israa'iil iyo Mareykanka iyo Xamaas ay haatan wada hadlayaan arrintan la yeeleeyo diblomaasiga sare ee carbeed ayaa waxa uu sheegay ururka Xamaas in ay ka feejigan yihiin walwal iyo walaacna ka qabaan arrintan in la hirgeliyo isla mar ahaantaasna Donald Trump aan ku gorgoranaynin oo kaliya hadal uu afka ka yiraahdo Donald Trump waxaa jira waxyaalo fara badan oo horey u yiri oo intooda badan oo iskhilaafsan intooda badan waxba aysan ka fulanin markii hore uu xilka hayay madaxweynaha doorkii hore waxaad ogaadeen inuu yiri gidaar weyn baan ka dhisayaa Mexican xuduudka ama borderka ka dhisayaa ayagaana lacagta bixinaya wax ka suurtagalay haba yaraatee ma jirto marka hadallo fara badan ayuu yiraahdaa oo aan loo qabanin oo markaas meel ka dhacaya qariska tuur loo arko iyo nin aan fadhinin dadka ka faalooda siyaasadiisa ama dhaliilo ayaa sidaas yiraahda si kastaba ha ahaatee diblomaasiga sare carbeed ayaa waxa uu sheegay inaysan Xamaas marnaba ku qancaynin hadal markaas uu yiraahdo Donald Trump uu yiraahdo oo kaliya balse ay doonayaan concrete yani wax adag oo la taaban karo oo markaa u cuntama wadaxaajoodkaas inay ka soo baxaan arrinta ugu weyna ay tahay inay Xamaas haatan ay baadi goobayaan wejiga labaad oo markaa la dardargeliya kaas oo dagaal kastoo afjaraya su-aasha isweydiinta la daawadayaal waxay tahay
maxay xamaas ku bedelan doonaan shakhsigaas ay doonayaan inay soo daayaan sida war-saxaafadeedka lagu qoray wixii kusoo kordha isha baarkeeda ayaanu idiin soo saarayna haddii alla yidhaahdo mar kale daawadayaal ramadaan mubaarag ina ogolaada inaan idinkaga mahadceliyey daawashadiina ku xirnaantiina iyo rukumashada janalka Brit Somali TV aad rukumateen iyo waqtigiina qaaliga aad siiseen gabagabadii iyo gulaanadkii waxaan jecelnahay inaan u guda galno haatan muuqaalkan wax yaroo ka mida idiin soo daayo codka waa ka xiraynaa si aan idiinla socodsiiyo waxa uu daaran yahay waa xabaalaha ciidamada Ukraine ayaa la yiri oo markaas dagaalka dhegta dhiigga loogu daray haddii aad eegtid aad iyo aad ay tiro badan yihiin inta ishaadu qabato oo dhan ayay ku yaalaan xabaalahanu waana halkan hadda waa Kharkiv Lviv ayaa sidoo kale xabaalo kale ay ku yaalaan oo aad u fara badan iyo weliba duleedka magaalada Kiev ayaa la yiri si kastaba daawadayaal ha ahaatee aad iyo aad inay u fara badan yihiin ayaa muuqata khubarada ka faalloota arrimaha ammaanka iyo weliba siyaasadda caalamka ayaa waxa ay sheegeen uu ka mid yahay Colonel Douglas McGregor iyo weliba professorka caanka ee John Mearsheimer in ciidamada Ukraine loogaga dilay dagaalka in ka badan 1 milyan oo askari haddaba madaxweynaha dalka Ukraine muxuu ka yiri arrintan madaxweynaha dalka Ukraine ayaa waxa uu sheegay ciidamada Ukraine loogaga dilay oo dhan marka la isku daro ilaa iyo haatan la tirakoobay waa soo asagoo hadalka u dhigaya in ay yihiin 48,000 muuqaalka halkan idinkaga muuqda waa Kharkiv Lviv sidaas oo kale ayaa jirta ayaa la leeyahay xabaalo fara badan ayaa ku yaala iyo weliba Kiev intaad haatan aragteen iyo kuwaas kale iyo dadka kale oo askarta kale oo meydkoodii weli aan la soo aroorin oo la xaqiijinin iyo kuwa la yiri they are missing in action dagaalka ayay ku maqan yihiin cirib iyo jaarmeere dhigeena lama hayo raq iyo ruux marka waxaas oo dhan la isku daro 48 kuna bay idin leeyihiin mise way ka badan yihiin khubarada hadalkoodu waa 1 milyan iyo wax ka badan obviously wax xaqiiqa oo la taaban karo anagu ma hayno dhinaca kalena Ukraine ruushka waxaa la sheegayaa in laga dilay ku dhowaad 500 milyan askar ah 250 kuna laga dhaawacay haddaba daawadayaal Ukraine oo aynu ognahay haatan inay lagu khasbay dowladda Mareykanku ay ku khasabtay in markaas uu qaato xabad joojinta oo uu markii hore diidanaa oo uu Donald Trump ku celceliyey dagaalkii saddexaad oo adduunka ayaa kugu soo socda meeshana waxba kuma haysid Yurubna kuma difaaci kartee amaad nabad qaadataa haatan waawaantaas ayaa socoto waxayna u egtahay in leeyahay in la hirgeliyo laakiin madaxweynaha dalka Ukraine waxaa dhanka kale leeyahay maalmihiisu waa tirsan yihiin Mareykankuna waxa uu haatan dabka saaray oo karkarinaya ciddii bedeli lahayd oo la baadigoobayo asaguna wuu ogyahay waana sababta markaas midowda Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska markaas uu garab u weydiisan